بسم الله الرحمن الرحيم وسيد عبد الفتاح وكنور وإذن وذي The Right Manager and maanta waxaan qaadanaynaa cashir really interesting ah oo aad iyo aad u xiiso leh oo ka hadlaya motivating yacni dardargelinta shaqada iyo shaqaalaha oo motivation la geliyo inay dhaqaaqaan oo hawsha qabtaan and rewarding employee iyo in maxay reward la siiyo. Reward waxa weeyaan qof walbo waxa uu leeyahay natiijada kasoo baxa shaqadiisa in la siiyo. hadduu punishment leeyahay ciqaab la siiyo, hadduu uu leeyahay reward oo bonus lacag la siiyo. marka motivating shaqaalihii in la dhaqaajiyo oo hawshaas u qabtaan ayaan ka hadlaynaa insha Allah. waxa xooga saaraynaa labo: define and explain motivation. Motivation waxa uu yahay in la garto. Compare and contrast early theories of motivation. in isku barbar dhigo oo la kala saaro theory-da. yacni theory waxa weeyaan qof walba wuxuu sheegay sida shaqaalaha loo dardargelin lahaa hawsha oo loo dhaqaajin lahaa inay hawsha qabtaan. theory ayay sheegaan, theories ay isku barbar dhigeen. motivation sidiisa horta waxa weeyaan waa habka uu qofku u dadaalayo si uu dadka energy geliyo, energized inuu ka dhigo employee. waa managerkan the right managerka ah waxaa laga rabaa inuu dadku dardargeliyo, energy geliyo, uu hago direction shaqadiisa ee soo managerku ahaa. marka directed inuu hago dadku shaqada ku hago oo si ay u gaaraan maxay goosh ayaa laga rabaa managerka. marka weeyaan hawshiisa individuals way ku kala duwan yihiin. marka waxyaalaha kicinaya inay drive yani waxyaalaha kicinaya inay shaqada qabtaan way ku kala duwan yihiin. motivation kooduna wuu ku kala duwan yahay, midba midka kale uu ka duwan yahay. shaqaalahan adiga aad hal dhinac ula dhaqmaysid, hal dhinac in lala dhaqmo maahe, mid kasta wuxuu leeyahay dhinac lala dhaqmo gaar. nin wax soo bartay oo cilmi leh ayaa kuu jooga iyo waxa kuu jooga ninaan wax soo baran. marka ninaan wax soo baran ayaa la dhaqmi jirtaa, waxaad oran jirtay wariyaha waxaa sameey punishment ku wad isagana waa punishment ku dhaqaaqi jiro. markaad dhahdo waxaa sameey ayuu sameyn jiray. midna waxa weeyaan academic weeyaan, cilmiga soo barto meesha uu fadhiyo, you know everything uu garanaya. dan shaqadiisa uu qabto markaas waxaad tiri war shaqadaada maxaa qabsan weyd, waa tii mar hore uu dhameeyay. markaas wuxuu ku yiri waan dhameeyay. maalin kale waxaad tiri war shaqadaada maxaa qabsan, marka dambe uu ka caroonaya war adiga maalin walba shaqadeen waana sheegaysaa uu leeyahay. yacni dadku isku si loolama dhaqmo motivation marka lagu sameynayo. shaqaalihii ayaaba ka kala duwan motivation. ninba wuxuu leeyahay behavior u gaar ah oo in loola dhaqmo uu rabo. managerka ayaa laga rabaa inuu garto mid walba waxa ku habboon. okay, elementiga ku jiro muxuu yahay? energy aa laga rabaa. energy-gaasoo drive u keena ama intensity inuu qofkii dhaqaaqo oo hawsha qabto. directed effort toward organization goal. waxaa la rabaa in ninka managerka shaqaalihii ku hago oo u sheego wadadii loo marayay hadafka shirkadda. waxyaalaha ka khaldan inuu u saxo oo yiraahdo meeshan ma aha dhinacan ka bax. managerka ayaa laga rabaa asagoonan qaylinaynin. haddii uu qofkan qaylo wax ku qaatana ku qayli, qofkan kale hadduu uu sasabid ku qaato iyo dhiirigelin. adigu muhiimada ugu weyn waxay tahay inaad garato shaqaalaha waxyaalaha ay si fiican u garanayaan, inaad effort u gelisid maxay oo aad ku dhigtid dadaal si u gaar gooshaas u gaar lahaayeen ayaa laga rabaa. inaad ku dhigtid oo effort u gelisid inay gaaraan hadafkii ayaa laga rabaa managerka. marka motivation soo kooborkiiso motivation waxaa la rabaa in aad shaqaalahaaga dhaqaajisid si ay u qabtaan shaqadii. energy aad gelinaysaa, waa direct gareynaysaa, waxaa leedahay meeshaan sidaan loo qabto, kan sidaan weeyaan, kan inta la sameeyo hadafkiisi loo gaaro. so waxaad garataa dadkani isku mid maaha, laba far isku mid maaha, gacmahaaga dad fiirsadan isku mid ahayn. so hal treatment ha sameyna, hal dhaqan ha sameyna. dhaqamada way ku kala duwan yihiin dadka. nin kastaba waxa uu rabo qaabku u jecel yahay u fiirso. marka waxaan qaadanaynaa theory far badan oo isku keen Maslow iyo Manspeck iyo Donald iyo ay sameeyeen ayaan qaadan doonaa.
وسيبنا 10 إن شاء الله. السلام عليكم.